وصلت الحسين والله يجوي وروح بدل ما أقول ما شاء أنا مركان لقى أشوفني هرقيسة وعلى الجود جري لا سعنا ضد العالم والله دلنا يا لكن فرح السنة والله الماضي تحول شوفني فرين هالك وحنا قدر يا أنا يردي الزمان أشوفتك أصحابي إذا هاي أنتوا ذو حنا هاي تشوفوا قال لكم بيسي هاي تشوفوا عاصم تشوفوا هو تذكرون ما والله أنا أقول لكم تذكرنا عشان دريم لا يفرحت والله يبان والله كم يعرفوا فوسط الحستي تذكرون إيش عارفين تذكروا لا صعانات مركز مريسان والله يبلين يا بني يقول ودشنا النبض بعد ما أنت بتشوفنا والله مدمد ما لكم بيتهلا على كيف كابلو Everybody make some TikTok. walaal ku soo dhawow Facebook page-keena Sun Entertainment Films. walaal ku dhawahay adoo noogu bilaabayo magacaada Iftiin Abubakar Axmed waxaan rabnaa inaan su'aal ku weydiino su'aasha diyaar ah u tahay yes hor su'aasha ta u guda galin marka hore single ma tahay mise marwaad marwaan ahay waxaan rabnaa inaan su'aal weydiino su'aashaas oo ah xaajigaada ayaa wuxuu ku dhahay macnaha sodaxda la degay sodaxdaada marka adiga ma jeceshahay inaad sodaxda la degto marka yes noo sababay marka sababta ku dooratay inaad la degto sodaxda waa hooyadee labaad ninka aniga jecel hooyadiis ma mar baad yacaawaye oo ninkii aad rabto oo sodaxdiisana la manci hadee xuntaa xitaa hooyadii labaad waa sodaxdii هذا ما استاب سودو ولا وان دو ولا ولا adoo noogu bilaabayo magacaada magacayga Anas waay waxa uu maleeyaa maanta dalxiiska liida soo aaday adoo noo sheegayo goobta ka soo dalxiista ma sha Allah imaada liido waxaan u imaaday jooy bedelasho iyo dabaal waxaan ka imaaday degmada hodan gaaraan xaafadda Taleex aad u maasantahay waxaan rabnay inaan su'aal ku weydiino marka hore diyaar mu tahay inaan su'aal ku weydiino diyaar waxaan inta u istaagay su'aal weydiiyo okay inta su'aashu guda galin marka hore single ma tahay mise xasla baba single ahay way baabaysay okay su'aasha inta aad u guda galno waxay u dhacaysaa lacala waxaad aroostay waa aroostay gabadhii waxay ku dhaaday macnaha waalidka mala degayno ma go'aankeeda ku shaqeyn lahayd mise macnaha adaa go'aan taa qaata dhiileed waalidka waa la degaynaa mise go'aankeeda u yeeleedo waa ayada meel kale dijileed wallahi go'aanka horta adag yahay inkastoo aanan hadda hayn gabadha laakiin waxa kan waa lacala haday dhacdo dumar iyo carruur waa loo taliyaa talada ana qaadan lahaa amarkayga la qaadan lahaa oo waxa dhiileed macnaha amarkiiga soconaa amarkeeda socmaayada may amarkeeda ma soconayo sababtoo ana u taliya ana ninkeeda ana hadda maanta mas'uulka ka xawaaye amarkaada soconaa marka waxa ayada waxay aday rabin waa iska bixi miyaad haday rabina sagaal liibanay safarta afar ku darsanaa waxa dhaaf wala sagaal waa la jaray may macnaha afarta liibanay hada afarta badidaan shan kala gursan karaabe mid furaay mid keenay saas oo qurux badan inaga ay diidaysan aniga waa may inta saago kala aad ma asta soo dhawla dhaw ma santi dhawla waa dhawahay adoo noogu bilaabayo magacaada magacayga waa Amira Amira waxa way galabta waxa soo dalxistay liida adoo noo sheegayo goobta ka soo dalxistay aniga saybiyaana ka soo dalxisay liida Allah waxa rabnaa inaan su'aal ku weydiino diyaar mu tahay inaan su'aal waxa jeceshaa way weydii kartaa aad ahaantaada aad ma astaay marka hore inta su'aal ku weydiino waxa rabaa inaan ku weydiiyo macnaha adiga qof single ma tahay mise qof marwaata single ma sha Allah waxa rabnaa marka su'aashina ku weydiiyo lacala waad guursatay ninka guursataa macnaha wuxuu ku dhahay sodaxdi guriga ninka sodaxdi ma la digi lahayd mise waxa dhii lahayd guri kala idintishi sodaxdana ugu soo horjeedaa Soomaan maxaa dhacay sabab ugu soo horjeedaa sodaxda sababtu waxay tahay waa isku dhici kartiin bil aadana tiimayno marka waa sodaxda lama digi leena adiga may ani ahaanteeda lama digi leena ahaanteeda ka hadlaa Soomaan lacala hadu asiku dhaho waa la digi maxaa sameeyay marwiya dhiglaay jaceelka doo qasban ma sheegin sax marka waxa dhileed meel kala digina inta sodaxda la digi ani ahaanteeda iyo iska ahaanteeda ina sodax la digo wallahi ruuxantii ma jeclaanay marka waxa dhileed
nagu kalood meel kale haddana dejin saxda waa saas aad u maasanta soo dhawo walaal waa dhawaa walaal adoo noogu bilaabayo magacaada magaciisa dacawaaniita Axmed Maxamed waa kugu soo dhaweynayaa page-ka Som Entertainment Films sidoo kale anigana waxaan dhihi lahaa waxaan rabnaa intaan su-aashu gudagelin inaad noo sheegto deegaanka ka soo dalxiistay maadaama liidaa u soo dalxiistay waxaa ka soo dalxiisay Yaksha wax yar codkaadan adoo sar u qaadayo intaad su-aashu gudagelin marka hore qof marwaa maad tahay mise qof single aad wallaahi weli marwale ah marwaa tahay waxaan rabnaa inaan su-aal ku weydiino maadaama aad marwo tahay soddexdaad maa la degantahay mise gooni aa u degantahay wallaahi waa jeclaan lahaa inaan la dego laakiin hadda lama degin waa gooni aa u degantahay hadda lacalla soddexda waa jeclaan lahayd inaad la degto soo maa waa jeclaan lahaa inaan mar walba la joogo aan la degnaa marka hadda su-aasha waxay ahayd laakiin maadaama ay hadda soddexda la degin dan ay keento duruuf soddexda waa la degi leed adig ahaan sax waa marka aadaa u mahadsan tahay kusoo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad walaal kusoo dhowow marka koowaad facebookgeena page Som Entertainment Films waan ku dhawahay walaal in badan baan ku dhawahay walaal marka hore adoo noo sheegayo magacaada magacayga Khaalid Axmed Cabdirsaaq baa la dhahaa Khaalid maanta waxaa u soo dalxiis tagtay liido marka adoo noo sheegayo deegaankaad ka soo dalxiis tagtay anigu reergiisaa tahay deegaan ahaan hadda aa ka soo degtay oo dalxiis kugu soo aaday liido muqdisho dhexdeeda boondheera ka imaada boondheere okay marka hore su-aasha taa ku weydiinin marka hore single maa tahay mise xaasla mee saaxib anigu xaaslo waa soo maray laakiin single baana hadda waxaa waaye single ka tahay okay su-aasha ku weydiinan waxay tahay qof haweeney guri baa dhisatay haweeneydii waxay ku dhahday adiga waxaa rabtaa inay hooyo la dejiso ayadana waxay ku dhahday la degi meeno gooni aa u degaynaa marka go'aanka adiga maada go'aanka qaadan lahaa mise go'aankeeda u yeeleedo meel kale dejin lahayd mee go'aanka aniga alaba gabadha macaanu maana qabin adaa qabo go'aanka anaada iyadu way ku raacaysaa haddee ku dhahda ilaa la degi mayno gooni aa noo dejiye ka war maxaa dhihi leedahay sabab maxaad go'aan oo noocee u qaadan lehed naagtu reerka hadday u taliso reerku u dumaaba waanu kala tegaynaa waa meeshaas haddiiba dheheen guriga la imaan waxaa waaye furinle waa miya aawo furaan oo gabadha haddii hooyadiiba diiday ay taladiina rabto weliba inay iyadu taliso waa laba qalad bay ku jirtaa ma garata waxaa waaye ilaa haddii maraba guriga hooyo ay diiday wax kale ee soo wadaa ka sii weynaa leeda waxa kale soo wadaaga weynaa adaa u mahadsantahay saaxiib badalxisay wallaahi jooga qurux badan baan ku arkay meesha anugu markaan halkaa joognay Hargeysa waxaan ilgu odhan jiray laasaanood dad gaadhaan waa la idin laynayaa laakiin dad faraxsan oo walaalnimada jecel baan joogu nimi fariin halkan waxaan uga dirayaa dhalinyaradii Somaliland joogtay halkay asxaabteeda ahay dhammaantood waxaan leeyahay Muqdisho waa magaalo laga midaysan yahay Muqdisho waa caasimad Muqdisho waa hooyo dadkan oo dhan waa walaaleen anigu imka deganaanshaan dareemnaya farxad wallaahi baan kumayaal qof oo soo dalxiistay dadkuna way iscaawinayaan dadku laascaanood markaad maraysaan waa la idin laynayaa baan ilguul Muqdishona nabad baan maanta ku joognaa wallaahi midnimadna halkan bay taalaa calankii kaa buluuga soo dhowo walaal waan dhawaa walaal walaal adoo marka hore noogu bilaabayo magacaada xabsi aadan ibraahim xabsi waxaa ku intaan su-aashii u gudagelin waxaa rabnaa waxaa waaye galabta waxaa u soo dalxiistay liido adoo nagu sheegayo goobtaa ka soo dalxiistay waxaa ka soo dalxiis wadajir wadajir aadaa u mahadsan tahay su-aashtaa u gudagelin marka hore qof marwaa maa tahay mise waa maasha allah waxaa rabnaa inaan su-aal ku weydiino lacalla waa ninaa ku guursaday ninkii wuxuu ku dhahay soddexda guriga oo ku dejiyey soddexda guriga ma la degi laheyd mise waxaa dhihi laheyd micnaha gurigeeda la degi maaye anaa meel kale
lama degi lahayn maxaa aniga hooyadii waa laga soo fogeeyay asna ka fogey lahaa micnaha haddii aan mar hooyadee ka soo tegay asna waxa waa ka fogeynaa miya leejo waay haddoo ku dhaa ka waran micnaha ilaa waa la degaysaa ma la degayaa leeyahay qasab maysan jiro maana micnaha waxaa waaye go-aankiisa raaci maa leedaha waxaa waaye go-aankii marka haddoo ku dhaa ka waran waa la degaysaa adigana ilaa wax la qabataa raba sodahda marka adigana saas hadduu kuu sheego maxaa sameeleed micnaha ficlaan aniga hooyadii waxa uma qabanayo asigna hooyadiis wax kama qaban lahayn maxaa aniga ka soo fogaada asina ka fogaan lahaa marka waxaad dhileed meel dhexna geey adiga labadeen baa kasoo leejo waa markaas waa ku qanacsanaay aada u maastahay soo dhowo waa dhowa walaalqayn soo dhowo walaal waa dhawaasan magacaada iyo adoo noogu bilaabayo dalxiisna meeshaan u soo aday iyo meeshaa ka soo dalxiistay oo maasha allah wallaahi ani horta magacayga waxaa leeyahay Sad Cali waxaan ka dalxiis aan ugu soo baxay degmada Ilwaa maasha allah waxaan rabnay inaan su'aal ku weydiino diyaar ah u taamalayna weydii kartaa okay su'aasha ku weydiin doono waxay noqon doontaa adiga horta single ma tahay mise xaas qabta micnaha saacan tahay single ahay sax su'aasha waxay ku saabsan tahay tusaale lacala waaba aroosaba ka soo qaad waxaa lagu dhahay marka xaaskaadii waxay ku dhahday hooyada adiga maladegeena ku dhahday marka adiga ahaan saa yeeleed marka micnaha xaaskaada warkeeda ma qaadan lahayd mas hooyaa la degi lahayd ma aan saaxib xaaskii warkeeda qaadan lahayd sax ayadaa la degi lahayd ayadaa la degi lahayd sabab laakiin oo xaaskaada u raaci lahayd oo micnaha sabab ku sababeena sababtu waxaa waa saaxib aan dhaqdhaqaaqay la dareemo ay sax micnaha xaaslada guriga waa laga maqlaa dhaqdhaqaaqas dhamaro la dareemo ay aada u maastahay soo dhow waa dhow saaxib ay walaal maasta